shir jaraa'id ay maanta ku qabteen xarunta garabka haweenka xisbiga isbeddeldoonka ee wadani magaalada Laascaanood ay maanta waxay si wada jira tacsi tiraanyada ugu direen Allah u naxariistee qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Talyaanle oo kamid ah xildhibaanada golaha baarlamaanka Soomaaliland annagoo ah haweenweynihii xisbiga wadani ee gobolka Sool waxaanu tacsi tiraanyada halkan uga diraynaa Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Talyaanle xaaskiisii caruurtiisii ehelkiisii qaraabadiisii iyo qarankii uu ka baxay Allah u naxariisto waanu leenahay Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Talyaanle qarankuu ka baxay ehelkiisii qaraabadiisii Cabdiraxmaan waxa lagu xasuustaa nin edeb labo ahaa nin akhlaaq labo ahaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun halkan waxaan tacsi tiraanyada uga diranaa Cabdiraxmaan Maxamed Talyaanle saxaabtii eheliyadii qaraabadii ku geeriyooday Ilaahay inuu samiriyo iimaan ka siiyo wuxuu ku suntanaa Cabdiraxmaan nin akhlaaqiyan dhisan umada Soomaaliyeed cidna ayaan gaf ka tirsanaynin godobna aan wadanka kaga tagin kutubkiisa quraanka Allah subhanahu wa ta'ala gacanta ka saaro halka annagoo ah haweenka gobolka Sool khaas ahaan xisbiga wadani waxaan tacsi tiraanyada u diraynaa Cabdiraxmaan Talyaanle dhamaan eheladii iyo asxaabtu ku tagin Allah naxariis sidoo kale waxa haweenkaasi wehelinaysay xildhibaan Fayme Yuusuf Cabdillaahi oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Laascaanood ee xisbiga isbeddeldoonka ee wadani iyadoo si dareen looga tacsiyay geeridaasi ku timid xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Talyaanle oo ku geeriyooday wadanka dibadiisa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kullu nafsin daa'iqatul mawt waxaan halkan tacsi tiraanyada uga diraynaa xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamuud Talyaanle oo ku geeriyooday dalka Hindiya kuma dirayo xisbinimo aniga adeerkay baa dadka waan ka jeclaa Cabdiraxmaan ilaahay waxaan ugu baryaa naxariista janno firdawsa ka waraabiyo qaranka iyo shacabka Soomaaliland samiriyo ma saadaqa ka siiyo awlaadiisa iyo qaraabadiisa iyo xaaskiisa samiriyo ma saadaqa Allah ka siiyo Allah u naxariisto Cabdiraxmaan wuxuu ahaa shakhsi afgaaban wuxuu ahaa shakhsi aan qabyaalada aqoon waxa shakhsi aan kala abtirinin dadka waxa lagu xasuusan doonaa oo in badan taariikhda lagu xusi doonaa jamhuuriyadda Soomaaliland markii loo kala abtiriyay isaga Baash Maxamed Faarax gobonimadii iyo dad jacaylkii uu ka qaatay iyo nasbanimadii uu ka muujiyay Cabdiraxmaan Maxamed Talyaanle maanta uu dhintay loogama baahna waxa soo qabtay wuxuu yahay waa loo yahay taariikhda Soomaaliland bi kaga taala Allah u naxariisto janno firdawsa ka waraabiyo haweenkan ayaa Ilaahay uga bariyay xildhibaankaasi geeriyooday in Ilaahay jannadii firdawsa uu ka waraabiyo sidoo kalena uga tacsiyay qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay xildhibaankaasi Maxamuud Aadan Askar Maxamuud Guray Somali News TV Laascaanood